أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. duulaanka alkhandaq wuxuu ahaa bisha shawaal ee sanadka shanaad ee hijrada, waana isaga ku xusan suuratul axzaab. nabi maxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam calankiisa dagaal wuxuu ku suray buurtan dusheeda, barta uu ka dhisan yahay masjidka masjiduraaya ama la yiraahdo masjid dhubaab. wuxuuna halkaas ku hoyday 6 habeen. hoostiisa buurta hoosteedana meesha ay baabuurtu fadhiyaan oo buurta salkeeda ah waxay asxaabtu ka qodahayeen dhufayska. markaasaa waxaa ku adkaaday dhagax dhufayska ku jiray. markaasay u qaylo dhaansadeen oo nabiga ka codsadeen inuu u yimaado sala allahu calayhi wasalam oo dhagaxaas ka jebiyo. markaasuu u soo degay oo wuxuu yidhi meesha baabuurtaani fadhido. markaasuu dhagaxii jebiyey. halkaas ayayna ka dhacday qisada salmaan alfarisi uu nabigu ka yiri calayhi salaatu wasalaam, salmaan mina ahla albeyti. salmaan anaguu naga tirsan yahay oo ahlalbeytka ayuu ka mid yahay. masjidkan masjid dhubaab ama masjid raaya wuxuu u jiraa xaramka 1 kilomitir ilaa 1 kilomitir iyo bar waqooyiguna ka xiga. wuxuuna ku yaalaa dariiqu alcuyuuni ama dariiq Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. wa akhiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.